magaalada Laascaanood waxaa ku dagaalamaya kontonkii cisho ee la soo dhaafay ciidamada Somaliland iyo ciidamada deegaanka. Labada dhinacba waxa ay kala qabaan aragtiyo aad u kala fog. Dadaalo nabdeed oo la isku dayay in xal waara lagu gaarana ka hor intaan miiska wadaxaajoodyada la gaarin ayay fashilmeen. Kan u dambeeyay ee hadda socda waa kan isimada dhaqanka ee Koonfurta Soomaaliya ay ku tagayaan Somaliland toddobaadkan iyadoo aysan Hargeysa niyad wanaag u haynin. haddana cadaadiska Mareykanka ayaa u baahan waqtigan in laga dhunto. Tabinteena waxaynu ku eegaynaa dhacdooyin dhacay, khasaaraha dad iyo dunyo, jiidaha dagaalka oo muuqda kuwa ballaaranaya, iyo ficilada dhinacyadu ay sameeyeen ee u dambeeyay oo dagaalka xaalkiisa sii bedelaya. kow khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay dagaalada. Colaadan oo ah weli mid socota waxay geysatay khasaarihii ugu badnaa oo leh naf iyo maalba, taasoo nooceeda aan la diiwaan gelin sanooyinkii la soo dhaafay, kana dhashay dagaalo dhex maray dad Soomaaliyeed. Inta la xaqiijinay in ka badan 1000 qof ayaa dhimatay, kuwaas oo ku geeriyooday dagaalada labada dhinac. Dhaawacyadu waa in ka badan 1800 oo ruux. Waxa ku jira dad rayid oo aan dagaalamin, balse guryahooda Laascaanood ay ugu tagaan madaafiicda Somaliland. In ka badan 185,000 oo ruux ayaa ka barakacay dagaaladan. Goobaha danta guud sida isbitaalka, quwadda korontada, biyaha iyo xarumihii maamulka ayaa bartilmaameed u noqday gantaalada ay Somaliland ka soo ganayso banaanka magaalada oo burbur soo gaarsiiyay. Dhigbax dhaqaale oo labada dhinacba haysta. Dhaqaale ahaan saameynta ka dhalatay dagaalku waa mid laga dareemayo dhammaan suuqyada isku xirnaa ee gobolada isku dhow. Gaar ahaan Somaliland saameynta ugu badan ayuu ku yeeshay dagaalka. Burco iyo Hargeysa qayladhaan ayay jeediyeen ganacsatada, sare ayayna u sii kacaysaa. Dagaalka lacagta adag ee loo adeegsaday ayaa kor u dhaaftay in ka badan 25 ilaa 30 milyan oo dollar. Tusaale ahaan halka maalin ee dhinacyadu dagaalamaan waxay isticmaalaan lacag ka badan 1 milyan iyo bar ilaa 2 milyan oo dollar. Halka maalin ee ay difaaca ku jiraanna 100,000 oo dollar ayay isticmaalaan. Qalabka military ee ay soo iibsadeen 40 cisho ee la soo dhaafay ayaa isna gaaraya malaayiin dollar. Dhinacyadu way ku kala badan yihiin adeegsiga lacagta adag. Marka laga hadlayo dhaqaalaha uga baxa helidda ciidamo cusub, dadka deegaanka dhinacooda ciidamada ugu badan ee ay helaan waa gurmadyo ka soo gaara beelaha ay bahwadaagta yihiin oo agabkooda sanadeed wata. Laakiin Somaliland aruurinta ciidamo beelayada oo ay bilowday 2 toddobaad ee la soo dhaafay ayaa isku keenidooda oo socota ilaa hadda ay ku kacday malaayiin dollar. Sidaas oo kale in qalab military oo dhammaystiran loo helana way adkaatay, taasoo kaleftay in odayaasha beelaha lagu wada qoro wiil dagaalama iyo hubkiisa. Ifafaalaha muuqda waa in khasaaraha dhaqaale iyo kan bini'aadankuba ka badan doonto inta dhacday. Haddii aysan guulaysan xalka nabdeed ee ay wadaan odayaasha dhaqanka ee Koonfurta Soomaaliya oo garab ka helaya dowladda federaalka iyo dowladda Mareykanka oo baritaaraysa. Jiidaha colaaddu hadda ay ka furan tahay oo ballaaran karta. Somaliland inkastoo ay weli ku doodayso in la dagaalamayso argagixisada caalamiga, xurima Al-Shabaab, Malaysia nabadiida iyo ciidamo Puntland ka soo duulay, haddana saaxadda labada dhinac ay ku dagaalamayaan hadda waa masaafo isku darkeedu dhan yahay 8 kilomitir. Waa buuraley dabiici ah kuwaas oo kulaalaya taliska ciidamada Somaliland ee Goojacade, kaas oo ay madaxweyne Biixi iyo xirtiisu u arkaan aaggan inay tahay in wax kasta loo huro sidii loo difaaciga ahaa loogana ilaalin lahaa gacanta dadka deegaanka ee la dagaalamaya. Dadka faaleynaya dagaalka Laascaanood ayaa bixinaya aragti sheegaysa inay suurtagal tahay in jiidaha 8 kilomitir la iskala gudbo, dagaalkuna saameyn ku yeesho wadada calaqadka u ah ciidamada Somaliland ee isku xirta Og iyo Goojacade, taasoo dhex martay deegaano ay joogaan dadka deegaanka gobolka Sool, kuwaasoo ka soo horjeeda damaca Somaliland. Laba habeen ka hor isku dhac hubeysan ayaa laga diiwaangeliyay magaalada Ari Cadeeye oo masaafo dhan 30 kilomitir u jirta saaxadda lagu dagaalamayo ee duleedka Laascaanood. Isku dhacan waxaa lagu fasiray bilowga xaalad hubanti la'aan ah oo ay wajihi karaan ciidamada Somaliland oo wadadan u isticmaala gurmadka, dhaawacyada iyo sahayda taliska Goojacade la geeyo. Dagaalka oo ka gudbaya xayndaabka ciidamada iyo ficilada halista ee la diiwaangeliyay. Ficilada argagaxale iyo diiwaangelinta habdhaqanada ka fog sharciga iyo dhaqanka Soomaalida ee laga diiwaangeliyay dagaaladii dhacay 18 Maarch iyo 1 bishan ee ay sameeyeen labada dhinac ee dagaalamaya ayaa abuuraya cabsida ay qabaan dad badan ee ah in dagaalku ka gudbo waxa ay dhinacyadu hadda isku hayaan, abuurana marxalad ka aradan habdhaqanka Soomaalida iyo saaxadda dagaalka. 18 Maarch iyo 1 Abriil askarta Somaliland ayaa baahiyay muuqaalo laga duubay maxaabiis dagaal
kuwa dhaawaca oo goor dambe dhimashadooda la xaqiijiyay iyo kuwa aan dhaawac ahayn oo loo geysanayo ficilo ka baxsan anshaxa dagaalka iyo habdhaqanka Soomaalida 1 Abriilna muuqaal laga baahiyay dhinaca dadka deegaanka ayaa muujinaya qof dhulka yaalla oo la dilayo dhammaan habdhaqanada dadku siyaabo kala duwan oo ay uga hadleen ayaa jirta hayeeshee midda la hubo waa in ay marxaladan abuurayso waxaan si fudud looga buskoon doonin iyo wajiga dagaalka oo ka sii durkaya halkii uu ka bilowday mowqifyada qolo kasta ku sii adkaysanayso oo marxaladda uga sii daraya aragtida ay kala qabaan dadka deegaanka iyo maamulka Somaliland ayaa sii kala fogaanaysa qolo kasta waxay ku adkaysanaysaa sidii teeda meel mar ay uga dhigi lahayd wada kasta way u maraysaa madaxweyne Biixi ayaa sheegay in Sool aysan marnaba ka maqnaan karin xuduudda Ingiriiska oo ay tahay Somaliland ciska saari karta gacantoodana aysan jirin madaxweynuhu waxa uu gaarsiiyay shariicada islaamka oo laga laabto ay la mid tahay in laga baxo Somaliland taas oo fasir ahaan noqonaysa qof ka tagay shariicada islaamka xukunkiisa oo kale waa dhacdo halis leh marka laga hadlayo xilligan ee adag ay dhinacyadu dagaalamayaan dadka deegaanku waxay qabaan in qiimo kasta oo ay ugu kacdo aysan Somaliland xukumi doonin gobolkooda sidaas waxaa sheegay ismada dhaqanka ee Sool Sanaag iyo Cayn oo wax kasta sheegay ka hormarinayaan inay tahay ciidanka Somaliland laga qaado laascaanood lana geeyo deegaanka oo ka horna aysan cidna la hadlayn kulan nabdeedna u sadacaynin taas oo Somaliland ayana ay sheegayso in aysan suuragal ahayn in ciidankeeda taaka ay ka saarto halka ay hadda joogaan ee duleedka laascaanood ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka